waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم ومر kale iyo duruusteennii taxanaha ahaa ee halkan laynoogu soo tabi jiray TV-ga qaranka Somaliland iyo ilaacadda aad kala dhageysan jirteen ilaacadda Radio Hargeysa. magacaygu waa Axmed Maxamed Cabdi. insha Allah waxaanu qaadan doonaa maadadeennii at-tarbiya al-islaamiya. mawduuceena waxa weeyaan waa asiira ayaynu soo wadnay. fasalku waxa weeyaan waa fasalka labaad ee dugsiga sare. درسينو قادن دونانا waxa weeyaan waa darsiga shanaad safxadda insha Allah aad kala socon doontaan waxa weeyaan 119 bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu soo wadnay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam inuu dirayay dhanbaalla inuu dirayay markaa u dirayay boqoradii waqtiga jiray oo runtii aad iyo aad u farabadnaa inuu waqtiga u dirayay waqtiga waxaanu horooga soo hadalnay inay yahay sanadkii lixaad wayaaqadiisa ama sanadka 7aad bisha ugu horeysa inahaas ahayd. waxaynu maanta qaadanaynaa kitaabkii lixaad ama dhanbaalkii lixaad ee uu nabigu u diray ila amiiril busra amiirkii busra haystay. alkitaabu waa kitaabkii ila amiiril busra amiirkii haystay waqtiga busra haystay. وكتب وقرأ صلى الله عليه وسلم كتابا يقرأ إلى أمير البصرة بقرك هايستي بصرة هايستي يدعوهم يسقوا وجيريا إلى الإسلام إسلام كوجيريا وبعث وحول الله دري وديبي الكتاب كتاب كامر دنبالك مع حارس ابن عمير الأستي صحابي السعودي فلما بلغ مركو قاري مؤتة صحابي سميشا مؤتة الله إلى مركو قاري تعرض له وحوصه بنبحي وكهر يمي شرحبيل نلا يدهضه شرحبيل ابن عمرو الغساني ninkaasaad deedna u soo baxay fadaraba cunuquhu qoorta ayuu ka jara saxaabigii rasuulku ilaahay uu soo diray ee rasuulku isaguna ahaa ilaahay rasuulkii ilaahay uu soo diray ayuu deedna qoorta ka gooyay tacarada lahu sharaxbil waa u soo banbaxay ibnu camr al-ghasaani fadaraba cunuquhu saxaabiga qoorta ayuu ka gooyay wakana waxay ahayd hada tanina ashadata ugu daran bay ahayd camal cudwaaniyin عمل مركا علاده يعني عمل لا سمeeyo oo cudwaaniyo yani colaytana tujaha taasoo marka ku aadan rususha yani waa amalkii ugu xumaa ama waa arintii ugu foosha xumayd ee nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam rusushii uu dirayay ama ergeeyadii uu dirayay laga hor yimi weeyaa falam yuqtal laga madilin li rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam rasuulka laga madilin rasuulan qayruhu rasuul kale laga madilin yani rasuul markeeda hore waa maxay dee waa qof la diro oo dhanbaal loo dhiibo waa ergey meel loo diro marka rasuulullaahi marka la yiraahdo dee waa kii ilaahay uu soo diray isna marka rasuul uu soo dirayaayo wuxuu soo dirayaa dee dadka uu dirayaayo boqoradan buu deedna u diraya marka nimankii uu dirayay ama saxaabadii uu dirayay kan mooyaane mid kale laga madilin وقد وجد وحو كالي صلى الله عليه وسلم على ذلك أرنتا وجدا شديدا رنتي آدي أدبوغ حماضي صحابيغا لدلي حتى أفضى أرنتا سوحي كانت حتى أفضى ذلك إلى أرنتا سكانتي إلى معركة المؤتة إن يدعضو دقالكي مؤتة اللوريكري وسنأتي وينو تجدونا على ذكرها حسكيد وينو تجدونا
macrikat almu'ta waxa weeyaan dagaalkii mu'ta la yidhaahdo ee aynu ka soo hadlaynay sababna uu ahaa saxaabigaa la dilay wa haadihi almacrika dagaalkani akbarun wuxuu ahaa kuwii ugu waaweynaa ee liqaa ay la kulmaan muthkin culays wa acdam uguna waaweynaa xarbu daamiya yacni dagaal dhiig lahoo dhiig uu ku daato khaadaha ay markaa dhex dambaashaan ay dhex galaan almuslimuuna muslimiintu fii xayaati rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam intii nebi maxamed noolaa yacni waa dagaalkii ugu khatarsanaa ee nolosha nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabadu ay galaan yacni qaar ka darani waa jireen laakiin intii nebi maxamed noolaa waa dagaalkii ugu daraa ee ay markaa galaan wahiya iyadu muqadimatun waxay ahayd hordhac bay u ahayd lifutuuxin furashadii la furtay buldaana nasaara dhulka markaa nasaarada ama dhulka kiristaanka yacni waxay ahayd tii ugu horreysay ayay ahayd waqacad waxay dhacday fii jamaadi aluulaa bisha la yidhaahdo jamaadi aluulaa sana 8 hijriya waa sanadkii 8aad ee hijriga bisha jamaadi aluulaa ayay dhacday sababu lmacrika maxaa sabab u ahaa ama waxyaalaha sababta u ahaa dagaalkan la yidhaahdo mu'ta inuu dhaco wa sababun hadihi almacrika sababka dagaalkanu wuxuu ahaa ana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bacatha wuxuu u diray xaaris ibnu cumayr alastiyin ayuu u diray bikitaabihi dhambaalkiisii uu u geynayey ilaa cadiimi lbusra boqorkii basra haystay fa carada lahu sharaxbiil waxaa markaa u soo banbaxay ninkaa sharaxbiil la yidhaahdo ibnu camr alghasaniy fa awthaqahu deedna markuu u soo banbaxuu deedna u yimi fa awthaqahu wuu xidhxidhay deedna ribaadan xadhkuu ku xidhxidha suma qadamahu deedna waa kaxeeyey oo fa daraba cunuquhu qoorta ayuu ka gooyey waayo taasoo kale waxa weeyaan waa waxyaalaha birimageydada ah erigeyga iyo dadka markaa madaxda ah iyo dadka culimada ah iyo waxyaalahaasoo dhan xitaa gaaladii hore aad iyo aad bay u ilaali jireen marka saxaabigan uu rasuulku soo diray sidaasaa deedna loo dilay ninkaa sharaxbiil la yidhaahda ayaa dilay sababna wuxuu saxaabigaas u noqday inuu dago dagaalkan la yidhaahdo inuu dhaco dagaalkan la yidhaahdo muuta inuu dhaco umaraa aljeish waxa weeyaan waa amiiradii ciidanka wa wasiyatun iyo dardaarankii uu la dardaarmay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ilayhim iyaga rasuulku markaa go-aan wuxuu qaatay boqorka basra haysta inuu deedna la dagaalamo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu sameeyey amiira ayuu sameeyey amiiradaasoo ciidanka iskaga hooseynaya umaraa waxa weeyaan waa amiiradii aljeish ciidanka wa wasiyatun iyo dardaaranku la dardaarmay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ilayhim iyaga amara wuxuu amray rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu amra calaa hada albacth diritaankan sayd ibnu lxaarisa saxaabiga la yidhahda sayd ibnu lxaarisa ayuu ciidanka hogaamiye uga dhiga wa qaala wuxuu yidhi in qutila sayd haddii la dilo ila waa hogaamiyihii in qutila saydan haddii sayd la dilo fa jacfar waxaa jagada qabsanaya oo ku xigayo hogaanka ciidanka loo dhiibaya jacfar ibn abi daalib baa loo dhiibaya wa in qutila haddii la dilo jacfar haddii la dilana fa cabdullaahi ibnu rawaxa loo dhiibaya wa cuqida lahum wuxuu u sameeyey liwaa abyad calan cad buu deedna u sameeyey wa dafacahu wuxuu u dhiibay ilaa sayd ibnu lxaarisa ayuu deedna u dhiibay calankii caddaa liannahu calanka waxaa qabanaya oo gacanta ku haynaya hogaamiyaha ciidanka inuu calankaasu mar qura dhulka u dhacana waa la iska ilaalinaya wa usaahum wuxuu nebi maxamed kula dardaarmay an yaatuu inay tagaan ciidankaasu inay gaadhaan maqtala alxaaris ibnu cumayr meeshii lagu dilay xaaris ibnu cumayr meeshii lagu dilay inay gaadhaan ayuu amra wa an yadcuu inay ugu yeedhaan man hunaaka cidda dhulkaa joogtana inay ugu yeedhaan ila alislaam islaamka inay ugu yeedhaan islaamka dagaalku markiisa horeba waa wasiilo wax lagu gaadho ee maaha xal isagu hadaatee waa la dagaalamaya uun haddii dadkuwa islaamka ay qaadanayaan dee dagaalku meesha waa ka baxaya marka halkaa inay gaadhaan
dadkana inay ugu yeedhaan islaamnimo ay ugu yeedhaan buu rasuulku kula dardaarmay. bidaayatun waxa weeyaan waa bilowgii alqitaal dagaalkii, yani dagaalka bilowgiisii. bidaayatun waa bilowga alqitaal dagaalka. wa hunaaka halkaa fii mu'ta iltaqaa waxaa ku kulmay alfariiqaani labadii kooxood baa ku kulmay. wa badaa waa bilaabmay alqitaalu mariir, dagaal runtii aada u qadhaadh. mariirka waa qadhaadhka, dagaal qadhaadh culus adag baa halkaa ka bilaabmay. 3000 rajul waa 3,000 oo nin, saxaabada weeyaan. hadda yuwaajihuuna waxay waajahayaan hajamaatin weerar 200,000 muqaatil, 200 oo kun u dagaalyahan. saxaabadu waa 3,000, gaaladuna waa 200 oo kun weeyaan. hadda u fiirso, hadda wax isu dhow haba yaraatee ma aha. macrikatul cajiiba waxa weeyaan waa dagaal runtii aada u cajiiba. akhada waxaa qaatay araaya, calankii waxaa qaaday sayd ibnu xaarisa ayaa qaaday. xubu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa kii uu jeclaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam. wa jacala wuxuu gudagalay yuqaatilu inuu dagaalamo bidaraawati albaaliqa, bidaraawa bimacnaa bishujaaca, geesinimo aada iyo aada u xeel dheer ayuu markaa ku dagaalamay. wa jacala wuxuu gudagalay yuqaatilu inuu dagaalamo bidaraawatin geesinimo baaliqata xeel dheer. falam yasil kamuu sulin yuqaatilu inuu dagaalamo, wa yuqaatil uu dagaalamo xataa shaada fi rimaaxi alqowm, ilaa ay deedna ku farabateen warmihii ka soo dhacayay xagga marka cadowga. shaada bimacnaa sida baraha roobka oo kale ku noqdeen. falam yasil kamuu sulin yuqaatilu inuu dagaalamo, wa yuqaatil uu dagaalamo xataa shaada ilaa baraha roobka lagaga dhigay oo ay ku farabateen fi rimaaxi alqowm, qoomka warmahooda ilaa ay ku farabateen. wa khara waa dhacay sariican, isagoo legdan, yacni dhintay ayuu deedna dhacay. sariic bimacnaa yacni isagoo meyda ayuu dhulka ku dhacay weeyaan, yacni waa dhintay. wa khara sariican, deedna waa dhacay oo waa la dilay. waxayna idin wakhtigaa akhada waxaa qaaday araaya, calankii waxaa haddana markiiba la boodoo qaaday jacfar ibnu abi daalib. liannahu nebiga ayaa marka qorshahan iyo nidaamkan soo sameeyey, laysku hadlayn maayo. markiiba waxaa soo booday jacfar ibnu abi daalib ayaa hogaankii ciidanka qabtay. liannahu ciidanku hadduu hogaanku ka lumo oo ay khalkhalaan, dee waa lagu jabaa inta badan. weligaaba badnow, haddaad khalkhashaan waad jabaysaa. marka akhada raaya waxaa calankii qaatay oo muslimiinta u qaaday jacfar ibnu abi daalib baa qaaday, jacfar ibnu abi daalib. wa dafiqa wuu gudagalay yuqaatilu inuu dagaalamo qitaalan dagaal buu u dagaalamay munqadican nadiir, wax la mid aanay jirin. xataa idaa arhaqahu ilaa ay daaliyeen alqitaal, ilaa uu dagaalkaasu daaliyey oo runtii aada iyo aada uu daalay. iqtaxama wuxuu khasab ku geliyey can farasihi, faraskiisii ashaqraa, faraskiisii shaqraa ahaa. shaqraa waa nooc midabada ka mid a, waa caddaan iyo casaan isku dhex jira ayaa la dhaha. waa shaqraa, waa midab caddaan iyo casaan isku dhex jira ayaa la yidhahdaa. markaa shaqraa baa la yidhahdaa. markaa faraskiisii midabkiisu ahaa shaqraaga ahaa ee markaa dahabiga uu ahaa ayuu deedna ka haysta. fa caqarahaa wuu gundagooy, lugaha ayuu gomadaha ayuu ka jara si aanu markaa aanu u bixin, aanu u cararin dee. fa caqarahaa wuu gundagooy, godmaha wuxuu ka jaray markaa gomadaha ayuu ka gooyey. uma deedna qaatala waa dagaalama xataa qudicat yamiinuhu, ilaa jacfar midigtiisii la gooyey. fa akhada raaya, calankii wuxuu ku qabtay bishimaalihi, bidixda ayuu ku qabtay. baladaw fiirsaada, markii gacanta midigta laga jaray jacfar laga jaray, wuxuu haddana gacantii wuxuu ku qabtay calanka bishimaalihi, bidixdiisa ayuu ku qabtay. falam yasil kamuu suulin bihaa iyada inuu ku hayo, bidixda inuu ku hayo, xataa qudicat shimaaluhu, ilaa bidixdiina laga gooyey. midigtii waa la jaray, bidixdiina waa la raaciyey. faxtadanahaa wuxuu isugu geeyey bicududayhi, labadii gumud ama labadii cududood ee go-naa ayuu haddana ku qabto. oo saxaabigaa eeg hadda si uu dagaalamayo, mas-uuliyadda saaran hadda eeg, labadii gumud ee la jaray ayuu haddana calankii ku qabto. falam yasil kamuu suulin raafican iyaaha, inuu labadaa gumud, labadaa dee gumud ee gacmaha go-an inuu kor ugu hayo calanka, xataa qutila ilaa deedna la dilay. falam yasil kamuu suulin raafican inuu kor ugu qaado iyaaha iyaga xataa qutila ilaa la dilay.
uma akhada araaya calankii haddana waxaa qaaday cabdillaahi ibnu rawaaxa saxaabiga ayaa qaaday wa taqadama bihaa hare ayuu ula maray wa huwa calaa farasihi isagoo faraskiisii fuushan ayuu dagaalkii gala waa kii saddexaad uma akhada sayfahu seeftiisii ayuu qaata oo fataqadama hare ayuu ula mara oo faqaatala waa dagaalama xataa qutila isagoo saxaabigaana ilaa la dilay saxaabiga kalena waa ku socda araayatun waa calankii oo ilaa sayfin min suyuufi illaahi uu qabtay seef ka mida seefaha ilaahay yacni saddexdii saxaabi ee uu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi hebel baa haynaya haddana hebel baa haynaya haddana hebel baa haynaya saddexdiiba waa la dilay sayid baa la dilay jacfar baa la dilay cabdilaahi baa la dilay bannaan baa laysi soo taagay araayatun waa calankii oo ilaa sayfin waa seef min suyuufi illaahi uu qabtay seef ka mida seefaha ilaahay waxayna idin wakhtigaa taqadama waxaa hare u soo maray oo ciidankii hare ugu soo maray rajulu nin min bani cajlaan nin reer bani cajlaana ayaa hare ugu soo maray deedna ismuhu magaciisa waxaa la yidhahdaa saabit ibnu arqam baa la yidhaahdaa fa akhada araaya wuxuu qabtay calankii ayuu deedna qabta oo waqaala wuxu uhi yaa macshara almuslimiin kuwankii muslimiintow istarixuu u dhiibta calaa rajulin minkum waar mid idinka idinka mida calanka u dhiibta ayuu ku yidhi qaaluu waxaa lagu yidhi anta adigaa dee haynayo la dagaalan oo adigu mas-uuliyadda dee qabso qaala wuxuu ihi ma anaa bifaacilin war anigu arrintan ma qabanayo mas-uuliyaddan ma qaadi karaye e muslimiinay calanka cid u dhiibta ayuu ku yidhi fastalaxa waxaa loo dhiibay annaasa fastalaxa annaasu dadkii waxay u dhiibeen calaa khaalid ibni waliid bay u dhiibeen khaalid ibni waliid hal yey buu ahaa waxaa la yidhahdaa waa hogaamiyaha weligiiba aan la jebin weligiiba hadduu gaal ahaa iyo hadduu muslim ahaa weligiiba lama jebin yacni waa waxyaalaha isku seegeen cumar binu khadaab iyo abubakar waxyaalaha isku seegeen ay yani isku diidanaan in bay ka mid ahayd leannahu khaalid wuxuu ahaa jiray had ya jeer dagaalgeliyaha ayuu ahaa abubakar deedna cumar baa ku yidhi waar ninkan dadku way tala saarteen oo isagun bay eegayaanoo hadduu galana waa la gelayaa jihaadkii haddii kalena waa laga dhacayaae dee dadka caqiidadooda ka xumaanaysa ninkan casil buu deedna yidhi abubakar wuxuu ihi mee casili maayo waa dubaha ilaahay gaalada madaxa kaga garaacaya ee ma casilaya buu yidhi markaa saxaabigan ayaa deedna markaa loo doortay oo calankii muslimiinta u qaaday falamaa akhada araaya markuu calankii qaatay qaatala wuu dagaalamay qitaalan mariiran dagaal qadhaadh ayuu deedna dagaalamay faqad rawaa wuxuu warinaya albukhaariyi waxaa laga warinaya can khaalid ibni waliid qaala wuxuu uhi laqad inqadacat waxaa ku burburay fii yaddii gacantaydii buu khaalid leeyahay laqad inqadacad waxaa ku burburay fii yaddii gacantayda yowmu mu'ta maalintii mu'ta 9 asyaafin 9 seefood ayaa gacantayda ku burburay famaa baqiya baaqi may noqon fii yaddii gacantayda ilaa safiixatul yamaaniya taa safiixatulyamaaniya la yidhaahda mooyaane waa seef lagu soo sameeyey yaman taa mooyaane wax ku soo haray haba yaraatee ma jirto waqad qaala wuxuu yidhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yowma almu'ta maalintaa mu'te wuxuu yidhi mukhbiran isagoo loogu warramayo bilwaxyin waxyi baa loogu warramayay nebigu dagaalka lama socdo kuma jiro wuxuu joogaa magaalada madiine ayuu joogaa meel ka fogna dagaalku waa ka dhacaya markaa nebi maxamed dee t v warar looma sii dayne laakiin ilaahay baa deedna hagayey oo halkaasaa laga daalacsiinayay halkaasuu ka daawanayay mukhbiran bilwaxyi waxyi baa loogu warramay qabla an ya'tii intaanuu iman ila annaasi alkhabar min saaxati alqitaal warku intaanu ka iman saaxadii iyo meeshii lagu dagaalamayey warku intaanu ka iman ayaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam loo warramay mukhbiran waxaa loogu warramay bilwaxyi waxyi baa loogu warramay qabla ka hor an ya'tiya intaanu ka iman ila nnaasin dadka intaanu uga iman alkhabaru warku intaanu uga iman min saaxati alqitaali goobtii dagaalka intaanu warku ka soo dhicin ayaa nebi maxamed looga warramay nebi maxamedna dadkiibuu uga warramaya reer madiina waa lagu soo ururo dagaalka halkaa ka dhacaya ayuu nebi maxamed u tabinaya wuxuu ihi akhada raaya calankii waxa qaaday sayd baa calankii haya fa usiiba deedna waa la asiibo waa dhinta suma deedna akhada waa la socdaa hadda suma deedna akhada waxaa qaaday calankii jacfar baa qaaday fa usiiba isna waa la dili suma deedna akhada waxaa qaaday
ibnu rawaaxa waa cabdullaahi ibnu rawaaxa ayaa qaaday fa usiiba isna waa la dilay wa caynaahu waktiga haddaba nebi maxamed indhihiisu tadrifaani aad bay u ilmaynayaan wa caynaahu indhihiisuna tadrifaani way ilmaynayaan xataa akhada araaya ilaa uu calankii qaaday sayfun seef min suyuufi illaahi seefaha ilaahay ka mid ah waxaa laga wadaa waa khaalid waa sayfullah baa la yidhaahdaa waa seefti ilaahay liannahu waa gaalada waa ilaahay madaxa ayuu kaga gura xataa akhada ilaa uu qaaday araayata calanka uu qaaday sayfun seef min suyuufi illaahi seefaha ilaahay ka mida xataa fataxa allahu calayhim ilaa ilaahay uu deedna markaa ku furay ajib camaa yaati waxaad ka jawaabaysaa waxyaalahan soo socda mataa waqacad macrikat lmu'ta goorma ayay dhacday macrikada la yidhaahdo mu'ta goorma ayay dhacday waa su-aasha koobaad su-aasha labaad udkur waxaad sheegtaa maa tacrifu waxyaalaha aad ka garanayso min aadaabi aljihaad aadaabta ay leeyahay jihaadku waxyaalaha aad ka garanayso sheeg udkur sheeg maa tacrifu waxaad ka garanayso min aadaabi aljihaad aadaabta jihaadka fii sabiili illaahi ilaahay dartii marka loo dagaalamayo aadaabiyaadka qofka looga baahan yahay wax ka sheeg su-aasha saddexaad kam kaana cadadun waa imisa tirada kullu min adarafayni labada daraf ama labada dhinacba tiradoodu imisay ahayd ciidanka muslimiintu imisay ahaayeen sidoo kale ciidanka gaaladuna tiradoodu imisa ayay ahayd su-aasha afraad waxaa weeyaan man akhada araaya calanka yaa qaaday cindamaa qutila jacfar markii la dilay calanka yaa qaaday calankii muslimiinta yaa qaaday waxaad ka jawaabaysaa markaa afartaa su-aalood iyo su-aalaha kale iyaguna dee buugga ku jira leannahu cutubku runtii waa aad iyo aad buu u dheer yahay marka waxaa waajib idin ku ah inaad xoog aada u akhrisataan inaha waxaa inoogu dhan casharkeennii shanaad ee aynu kaga hadlaynay qaswadii lo odhan jiray mu'ta ciwaankeenana uu markaa ahaa ciwaankeenii guuda uu ahaa siiradii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa sidaa iyo la socod wanaagsan xiisaddan xigta iyo kulanka aynu insha allah ku kulmi doono waxaa laydinka soo tabinayaa maxay tv-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan oo aad ka daawataan sidoo kale aad ka dhegaysataan ilaacadda raadiyow hargeysa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eewean mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno